hadda waxaan soo gaarnay xilliga doorashooyinka meeqa bilaa ka dhaman doorashooyinka 5 bil Sheekh Cabdiqaadir abad 5 tan ka dhigaynaaba 5 bilaa dhiman doorashada la gelaayna ma naqaano walaalkay salaad waxa uu leeyahay doorasho cod waxaan rabaa qof iyo coda ani waxaan leeyahay doorashada suuragal ah la sameeyo barxay waqtiga waa dhamaad sababtuna maxay tahay in doorasho waqtigeeda lagu qabo waayo ama laga heshii waayo khatara maxay la dalkan waa jilcanya wax kasta dhici kara marka waxa aan hayno inaan hubino inaan hayno oo intaan caloosha isu furno si mawduuci ah oo dadnimo la oga doodin ani mararka qaar waxaan isweydiyaa shariifow ama dabaal taaba doorasho qof iyo coda ani waxaan u fahamsanaa midda oo reer galbeedka ka dhacda saas oo ma maxay u baahan tahay taas waxay u baahan tahay security waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay dadka in la tiro koobo waxay u baahan tahay dadkii shaqada qaba lahaa in la tababaro waxay u baahan tahay yani cadaaladda iyo nasaahadda ay ku dhacayso in la wada ogyahay billaahi caleyk goormaa la samayn karaa waxaas aniga dadka ninka ugu adkaysi badana ah haddaad dhehaysiin farmaajo ha noo joogo ilaa intaas laga gaaraayo ani waxba kama qabo laakiin waxaa ogaanaysiin 20 sano xataa laguma qaban karo marka macnaheedu waxa waaye boqortooyan ka hadlaynaa xataa dawlad kama hadlayno boqor maan duubanaa saas ma yeelaynaa aan ku heshiino aan soo fadhiisano waxaad yeelaysiin waxa aan qaban karna aan qabanno aniga waxaan soo qabtay doorasho odagu oo wax soo qoraayo madaxweyne xasan sheekh wuxuu soo qabtay 51 200 300 400 500 whatever oo xisaabta lagu galaayo maxaa diidaay meeshan siyaasadda waxaa la yiraahdaa fanul mumkin waxa la sameey karo qof ku waajibisa ma jirto waxaadan qaban karin inaad qabato laa yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha qof walba ani waa jeclaa lahaa inaan gaarsiiyo dawladda doorasho one person one vote ma dhihi jiray hadda bariyan saasa loo baxsho one man xataa lama ogola leeyahay marka haddii ii gaari weys ka waran daa'ira xafiisku waa jooga ilaa doorasho qof iyo coda daa'ira sax ma waqtigii waa dhamaaday dadkeena u celi waay ama waxay igu daraayaan ama waxay leeyihiin raali naga haw iska bax in marka waxay la tahay carabta waxay dhahdaan لو دامت لما وصلت إليك كرسي هدو قف وجوج لهاي هذيكم مسوقارتي لو دامت لما وصلت إليك كورنا هدو محمد سياد برئيس كجوج لهاي عبد الله يوسف نيكلا رئيس عبد القاسم علي مهدي أنا أسكجوج لهاي حسي قتوي مالها مرك فرماج أنتوي مالها ما جرت مرك باشا ولا سوديبا إن الرالي سوقنا قناة الربا نقول بون نصيب كاقعن مدحون هذا حولين هذا اللي قتومايا كرسي هذا جوكتا ودناها قفيسو بس نكو قبو كورم وركاس شاكا هذا كذا شاكينا دور الشذا مركي عن قبليني كلي إيمان رجع إلى جوجي dad waxay soo jeediyeen doorashada dib loo dhigo gabigeedaba leeyaha dalku xaalad adag oo ku jira doorasho waxaan gaarsiinanaa qof iyo coda shabaab hadda noo jabay shaqadan aan dhameynayna hal la daayo waa fikira waxaan dhaa shariifo arinta qurxanta laakiin waxa ku dhex jiri kara haday waxa laabaan ka waran waa ka soo gudubna waxaan ku yiri may doorashadan aadayna naga daayo waa iska dayn markii doorashada waqtigeeda dhamaaday oo xildhibaanadii la xulay oo gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa la diyaariyay أخيرا صاحبنا أيتم دحين شنها بين بس نقاط وحنا كلا دات سنة وحاير هلا بين يدين مقاذكر سببت أوري أيدي شيء كرسي أنا نجعلين ما أملينسي واجعل لكن وحنا أفكري شنها بين أن كدري خلا داعي مسؤولية داس أمام الله يا قاضي أنا قاضي صومه وجا وقف كرسي كل كان هذا أرحت كم فكرين مسؤوليتي وقت قاعد لما يسو وأكو شرفنتها هاي صوترتن والولا ترتم هذا شو والوجو باركينا هدي أتكتكتنا واللو شرفه سيده لو شيغاي غربها لغا جوغسا مشكله ما جرت oo hadda aan kursi ma joogno maxaa naga hadlaysa wax naga hadlaysa ma jiraan kursiga inaa fadhido wax kasta ma Soomaali meeqa waa milyan 15 bilyan maybe dadka oo dhan madaxweynayaal miya maya